horey ma u maqashay yaxaas badeed dilay yacni cunay dad ka badan 300 oo qof ahna mid ka mid ah yaxaasada ugu halista badan dunida mid ka mid ah kuwooda ugu cumriga dheer ku dhawaad 100 sano ayuu nool yahay dhirirka yaxaaskan waa mid saayid ah waxaa la isku dayay qabto laakiin ma suurtagelin dalka uu ku nool yahay baa muuqaalkan kugula wadaagaya yaxaaskan waa mid ka mid ah yaxaasada ugu halista badan caalamka oo idil waxa uuna nolosha dhaafiyay 300 oo qof dad gaaraya waxa uuna yahay yaxaaskan mid lab ah wuxuuna ku nool yahay ama asahan uu ka yimid dalka Burundi dalalka Afrika ku yaala waana dad cun waxaana yaxaaskan la sheegaa inuu yahay mid ka mid ah kuwooda ugu halista badan ee ku noolaa dalka Burundi inkastoo markii dambe yaxaaskan Burundi uu ka tagay mar dambana lagu arkay webi ku yaala gudaha dalka Tanzania yaxaaskan waxaa lagu magacaabaa Gustavo waana yaxaas aad u halis badan dhirirkiisu waxaa la sheegay inuu yahay 20 feet waa 6.1 mitir dhirir ahaan markii loo eego waxaan lagu cabiri karaa 3 rag oo dhaadheer oo la dul saaray dhirir ahaan markii loo eego waxauna cabir ahaan yacni miisaan ahaan gaarayaa 910 kilogram waxaana la sheegay yaxaaskan inuu yahay midda ahaan nool ilaa iyo 100 sano yaxaasada kuwooda ugu da'da weyn ayuu ku jiraa da'diisuna waa mid marba marka kasii dambeysa sii koraysa cabir ahaan dhirir ahaan iyo si kastaba yaxaaskan maadaama dad cun uu yahay tiro 300 oo qof dad la sheegay ay ku maqan yihiin isaga waxaa mar la isku dayay in la qabto sanadii 1990kii nolol iyo geeri labadaba laakiin rasaas ama xabado 3 gaaraya oo mar lagu furay yaxaaskan waxaa suurtagali weysay in la qabto garabka midig ayana kaga dhacday xabadahaasi dhaawac ayaana ka soo gaaray sidoo kale rasaas kale ayaa lagu furay mar laakiin lama qaban laguma guuleysan in la qabto qofka uu gacanta ku dhigana si fudud ayuu ku laqaa waa yaxaas cabsidiisa iyo markii la arko weynaantiisaba aad looga baqrontii yaxaaskan filin ayaa sidoo kale laga sameeyay filinkaas oo siyaabooyin kala duwan loo daawaday waana mid ka mid ah kuwooda ugu halista badan dunida ka jira waxyaabaha la yaabka leh ee yaxaaskan lagu arkay waxaa ka mid ah in habeenkii yacni markii la booqdo webiga halka uu ku jiro yaxaaskan habeenkii qof ka mid ah markii uu booqdo ama ku dhaqdo isdhaho uu si fudud meel kaga soo baxo kadibna uu qabsado 2009kii ayuu mar ka soo muuqday webiga lagu magacaabo Ruzuzi oo u dhow dalka Tanzania ama dalkii la oran jiray Tangiinka laakiin hadda loo yaqaano Tanzania yaxaaskan asalkiisa hore wuxuu ku noolaa dalka Burundi oo dad aad u fara badan uu ku soo cunay kuwaas oo siyaabooyin kala duwan yaxaaskan isagu uu cunay da'ahaan muuqaal ahaan iyo dhirir ahaanba 3 qayb yaxaaskan waa u korayaa ilaa iyo hadda waana mid ka mid ah kuwooda lagu cabsida badan yahay ee ku nool biyaha gudaha dalka Tanzania mid ka mid ah kuwii lagu cabsida badnaa ee ku noolaa ama yaxaasadii ku noolaa wadanka lagu magacaabo Burundi Gustavo hadda saameyntiisu waa mid aan la dafiri karin runtii waana mid cabsi ah oo aad looga cabsado waana mid aan si fudud loo dhayalsan karin Gustavo waxaa la sheegaa in dadka uu cunay ay ku jiraan dadyo kala duwan oo dabaal u tagay webiyadaas kuwa kale oo ka agdhawaa goobtaas oo si fudud uu ku cunay isaga waxaana la sheegaa inuu yahay mid ka mid ah kuwii ugu halista badnaa ee yaxaasada ee caalamka ka jira filimo kala duwan ayaa laga sameeyay filimadaas oo noqdeen kuwa la daawaday siyaabooyin kala duwan looga daawaday goobo kala duwan haddii noqon lahayd dhanka taleefanada dhanka TV-yada iyo dhan kastaba Gustavo isku dayigiisii in la qabto ma aysan suurtagelin waa ayna fashilantay muuqaalkii maanta intaan ayaan ku soo koobayaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena tani muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo أمان الله.